بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة إلهي ومهد الله سبحانه وتعالى إن قد مسلمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحان إن شاء الله تعالى سكوبا ما أنت يسد التاجينا بعدما lagu jiro waqtigii doorashada wadanka Mareykanka doorashadaas oo laba qaybood doorashada guud ee wadanka madaxweynenimadiisa iyo qaybo fara badan oo maaragtay localka waxaan la yiraahdo magaalooyinka iyo gobolada ah lagu jiro inaan doorashadaas iyo ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay inaynu muxuu ahaa wax dul istaagno insha Allah taala inagoo marka hore ka fiirinayna xagga islaamka iyo benefitka ama faa'iidada ku jirta insha Allah taala waxaan ogaanaa marka koobaad inaan nahay dad muwaadiniina ama dad wadankan qayb ka ah oo muslimiin inaan nahay inaan ogaano wadanka markaan qayb ka nahay wadanku wuxuu inagu leeyahay wax la yiraahdo xuquuq muxuu ahaa ama waajibaad buu inagu leeyahay inaguna wadanka xuquuq baan ku leenahay waajibaadka wadanku inagu leeyahay way fara badan yihiin waxa kamida qayb kamida inuu qofku noqdo qof citizen oo muwaadin oo wanaagsan oo shuruucda wadanka ilaaliya shuruucda wadanka ixtiraama shuruucda wadanka aan ku xadgudbin waa qayb kamida weeyaan inuu qofku noqdo qof muwaadin ah ama muxuu ahaa wadani ah oo wanaagsan oo wadanka dantiisa iyo maslaxadiisa ka taliya waa muxuu ahaa xuquuqda ama wadanku inagu leeyahay weeyaan waxa kale oo kamid ah muxuu ahaa waxyaabahaas qofku inuu codeeyo oo cidda uu arkay inay wadanka dan ugu jirto maslaxa ugu jirto inuu u codeeyo iyaduna waxyaabaha in saaran ee la iska rabo weeyaan xagga kale waxa weeye inaga xuquuq baan ku leenahay wadanka oo qofka xuquuqda ku leeyahay waxa kamida inuu cadaalad helo inuu shaqo helo inuu nolol helo inuu muxuu ahaa ixtiraam helo inuu helo qofkii oo lagu qadariyo oo xor u yahay diintiisa iyo habdhaqankiisa waxaas oo dhan marka waa waxyaabaha inaguna aan ku leenahay wadanka weeyaan qaybta marka yara doonaya maanta inaan si kooban u tilmaamo waxa weeye inaynu codeyno insha Allah taala codeyntu marka waxay soo galaysaa laba nooc si kooban u dulmaray insha Allah qaybta koobaad waxa weeye وأما بنعمة ربك فحدث نعمة الله وكسيوي سبحانه وتعالى ومضفر بدن بان ما انتهي سن حريات أي كعديان ومضفر بدن بان ما انتهي سن حريات أي كدورتان قفك أي دونيان ومضفر بدن بون ما انت عد كود وحقيمة وكفر ديابا وسنجرين أو محوها قف عدوي دينيسا يقف تلوي دينيسا يقف محوها منا آن هي سنين أدونك دعالاديسا كنول ومضفر بدن با udagaalamay oo dhiig u daadinaya inay xorriyada helaan in cidda ayagu rabaan say ku dooran lahayn ay ku helaan mudfar badan ba arinta iyada ah muxuu ahaa halgan ugu jirta inagu marka waxaan ku noolahay qayb ka nahay wadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu tafadulay dadkiisu dadaaleen oo shaqeeyeen oo dariiq dheer loo soo maray taas oo marka qofku uu xorriyadiisa khiyaarkiisa uu ku dooranayo cidda uu arko inay wadanka dan ugu jirto cidda uu arko wadanka inay maslaxad u tahay cidda uu arko in muxuu ahaa community-ga muslimka iyo wadanka guud ee community-ga muslimku qayb uu ka yahay ay dan ugu jirto marka waa nicmo Allah ku siiyay nicmada ka sheekeynta markuu Ilaahay waa ama binicmati rabbika fahadith nicmo walba qaab looga sheekeeyaa marka tan qaabka looga sheekeynayo waxa weeye inaad arinta iyada samaysido aad codeysid oo laga soo bilaabo mid ugu sarreeyay ee madaxweynaha iyo mid ugu hooseyso oo magaaladaada muxuu ahaa qofka ka noqonaya city councilka ama wax la baladiyada iyo magaalada hoose inta u dhaxaysa inaad codeyso ayaa la doonaya oo mar hadii aad xuquuqda leedahay oo qof citizen oo codeyn kara tahay waa inaad codeyso marka waa min baabi tahaddith bi ni'mati rabbika fahadith weeyaan taas waa qayb weeyaan qaybta labaad ee kale waxa weeye codeyntu waxa weeyaan waa shahaada oo bimacnaa cidda aad u aragtay inay maslaxa u tahay wadanka iyo ummadda ayaad ka marxaati ka codkaaga aad siinaysaa wala taktumu ash-shahada waman yaktumha fa innahu aathimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim rabbillahi subhanahu wa ta'ala marka qofku markuu cid dooranayo waxay ka dhigan tahay cidan aan doortay ba waxaan ku qanacsanahay shahaado ka kacaya iyo marxaati in ay bulshada dan u tahay yani marka xaqaana waa qaybta kale oo aayada quraanka dhanka iyada ay ka soo galaysaa aayad kale ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka meel kale ka oranaya fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna alima marka intaan hadda u socdo marka waxa weeye codkaaga markaad u aragto inuu maslaxa ku jiro inuu faa'iido ku jiro muxuu ahaa dadaal adugu sida aad ugu aragto inay ugu maslaxad badan tahay bulshada iyo ummadda iyo wadanka ayaa la rabaa inaad u codeyso hawadaada iyo waxyaabo marka aad ogtahay inay wadanka faa'iido u lahayn
qof aad ogtahay inuusan dan ugu jirin sa aad ku qanacsan tahay inaadan u codayn baa la doonayaa yani marka taasna waa qaybtaas weeyaan xaga kaleeto walaa ya'ba shuhadaa'u idaa maa ducuu aayado fara badan oo qur-aanka ka mid oo shahaadadaas ka sheekeynaya ayaa jirta marka doorashadu xagga kaleeto waa min xayث muxuu ahaa shahaado iyo qofku inuu ka markhaati kaco qofkanaan doortay waxaana u doortay wadanka ayuu dan u yahay ummadda ayuu dan u yahay saasoo kaleeto xaga kale waxaan rabnaa inaan ogaano wadanka maraykanka doorashadiisu ma aha oo kaliya bulshada shacabka maraykanka wadanka maraykanku adduunka oo dhan baa soo dhowraya adduunka oo dhan bay doorashadiisu saameynaysaa waxay saameynaysaa dadka ku nool geeska africa ay saameynaysaa dadka bariga dhexe ku nool bay saameynaysaa dadka south east asia ku nool bay saameynaysaa qofka muxuu ahaa dadka yurub ku nool bay saameynaysaa adduunka dacaladiisa dadka ku nool dhan bay doorashada maraykanku ay siyaabo kala duwan ay u saameynaysaa maxaa jira wadanka adduunka ugu xoog badan weeyaan sidaa darteed mar hadday doorashadu sidaa tahay oo inagii gudaha wadanka joognay dadkii dibaddaba ay saameynayso waxaa la doonayaa qofku inuu codeeyo cidda uu arkayo inay wadanka dan ugu jirto ayaa la doonayaa walaa naktumu shahaadat allahi ina idan la min alaathimiin taasuna qayb kaleeto weeyaan waxaa kaleeto oo muhima marka laga sheekeynaya arrintaas muxuu ahaa shahaadada iyo dhankaas yada xagga diinta waxa weeye qayb kaleeto arrintan waxa weeye waa maslaxa inuu qofku uu ka fiiriyo oo waxaa la yidhaahdaa al-umuuru bimaqaasidiha ayaa la yidhaahdaa waxaa kaleeto oo la yidhaahdaa oo qawaacidda fiqiga muxuu ahaa ka mida waxaa la rabaa in laga shaqeeyo muxuu dafci mafaasid iyo jalbi masaalix wixii mafaasid ah dhibaato iman kartana in laga hortago wixii masaalix ay faa'iido ah muxuu kalena in la soo jiido taasuna waa qayb labaad weeyaan marka qaybtaas marka xagga diintiina waa sida dadka marka waxaan rabnaa inay ogaadaan dhan waa xagga nicmadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo lagu xamdinayo dhanna waxa weeye waa waajib ku saaran oo wadani ah weeye waa waajib iyo arrin ku saaran oo xataa diintaadu ay ku farayso in aad intaad isnidaam intuu qofku dadaalo inuu yidhaahdo keebay wadanka dan ugu jirtaa communitiga ay dan ugu jirtaa taana waa qaybta muxuu labaad weeyaan waxaan kaloo kusoo khatimayaa walaalayaalow arrintan ku saabsan muxuu ahaa doorashada iyo codayntu waxa weeye oo kale waxay dadka baraysaa xil buu qofku dareemayaa xilkii baa rabaa qofku inuu guto codkaagu marka u fiirso dad buu meel geynayaa codkaagu dad buu ayuu xil ka qaadayaa hadduu codkaagu marka sidaa yahay hala bakhiilin cidda aad u aragto inay wadanka iyo ummadda dani ugu jirto codkaaga meel ku gee cidda saasaa marka la doonaya marka insaankiibuu yaa la qiimeeyey insaankii baa la sharfay codkiisii baa qiimo loo yeelay codkiisu marka qofku ama ku meelmaraya ama communitigu ku meelmaraya qaybta kale aan ku daraya waxa weeye innaga oo kaleeto communitiyada minority-ga ah mararka qaarkood markay aada isu abaabulaan aada isu habeeyaan aada isu muxuu nidaamiyaan codkoodu micno kaluu samaynaya oo dadka xaafadda laga dooranayo dadka baladiyada ama qaybtaada hoose magaalada laga dooranayo qofka city muxuu ahaa magaaladaas laga dooranayo magaalada u noqonaya duqa magaalada noqonaya xataa gobolada qaarkood qofka noqonaya duqa muxuu governorka wax la yiraahdo ama gudoomiyaha gobolka noqonaya dadkaas oo dhan codkeenu qiimo gooni ah buu leeyahay oo hadduu communitigu ishabeeyo oo nidaamiyo codkiisa ayuu ku gorgortami karaa communitigu wuu odhan karaa haddaan muxuu ahaa aan ku codayno maxaad noo qabanaysaa maxaad communitiga u qabanaysaa maxaad noo samaynaysaa fiiri marka codka qiimaha uu yeesho yacni marka sidaa darteed ayaan doonaynaa taana in muxuu ahaa iyadana qayb muhiima communitigu inuu is abaabulo communitigu inuu is habeeyo communitigu inuu si fiican isu nidaamiyo ayaan doonaynaa waxay Soomaalidu ku mahmaahi jirtay ninkaan hadlanin habartiina wax ma siiso arrintaas waxay dhab ka tahay wadamadan aan joogno ee galbeedka dhanka dhab ka tahayo communitiga uu ka xoog badan yahay uu ka habaysan yahay uu ka nidaamsan yahay ayuu ka xoog badnaanaya marka ay timaado qaabka uu danihiisa uga dhameysanayo dawladda ama ha noqoto dawladda dhexe ama dawladda magaalada ama tamxoo gobolka ha noqoto yani saadarteed walaalayaal waxa weeye codkaagu qiimo leeyahay واجب iyo xuquuq baa lagu leeyahay marka xuquuqdii lagu muxuu ahaa waajibka lagu lahaana gudo xuquuqda lagu lahaana raadso ha noqon oo kaliya qof isaga xuquuqdiisa uu doonto waajibaadkiisana muxuu ahaa aan ka soo bixin ha noqonin marka wadanka xuquuqda uu nagu leeyahay codayntaas ayaa kamidaho aan doonaynaa insha Allah ta'ala waad mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh